nin kaste oo laba dumar qaba ama ka badan qaba oo mid kamid xaggeeda u bata balaado fiirso nin kasta oo laba dumar iyo wax ka badan qaba oo mid kamid xaggeeda u bata oo yaani habeenada u badiya ama jawriyo dulmi xaggeeda ugu bata qiyaamaha nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu qofka ninkaasi wuxuu imanaya qofkii bini'aadamka sida u taagnaa isagoo dhinac u qalooco imanay dadku markay gaboobaan oo soo qaloocda calaamad laga muujinayo qofkii caynka u taagnaa dhinac baa la u qaloocinay markaas ummadda wada garanaysa balay dadkii ragii dumarkooda cadaalad u sameeyay waa kuwaas markaas la oran dhinacu badnaa loo qaloocinay marka dumarkiin cadaalad loo sameeyo taas kamida maxaa cadaalad loo yaqaana in uu sameeyo waa inuu reerkiisa iyo caruurtiisa iyo gabadhiisa baad ku filan oo aanay ka dayacmin kuwa dambu soo kordhiyayna aanay ka dayacmaynin labada qaarna ka dayacmin oo labadaba uu ka adag yahay ninka guurka cid u diidi karta ma jirto sharci ahaan haddii gabadha hore iyo caruurteeda iyo aanu dayacayn oo wax dayacaad aan ku imanay ta dambe uu guursado iyo caruurteedana wax dayacaad aan ku imanay waa u banaanta inuu mathna wa thulath wixii uu awoodi kariyo guursado haddaba wa in khiftum alla ta'dilu hadda ka cabsatana cadaalad sameyn kari weeyaan dadkii isku qalbi ma qaar baa laga yaabaa inuu tii cusba iska raacabo tii hore iska tagaba oo dhaldhalaal raacu yahayo oo xaaskii iyo caruurtii reerkii bay laabiyo sida ku tagayo kaas oo kale uma banaano inuu guursado naftiisana qofku waa inuu barto inna al-insana ala nafsihi basira qofku de naftiisa uu yaqaana marka fawaaxida buu marka gabadhiisa iska haysanay laakiin shardi maaha gabadhan guri muu dhisan gaari ma laha caynkaas saxma waxa la eegayaa biilkeeda waxay qaadanayso wixii ku filan ma garanaysa laakiin waxa qalada oo ceeb inagu aragow ceeb inagu oo xataa mar walba in laga garhelaa ninku reerkiisa dayacan baadoo fiirsada waxa ceeb inagu filan reerkiisa dayacan oo ubadkiisa ay dayacayn oo wax barasho la'aan hayso oo gabadhiisu saambuusa suuqa ku iibinayso oo aanu kuma filnay reerkiisa inuu naag kale isku raro arrinkaas waa ceeb caarun calayna ceeb arrinkaas inagu diituna ma qabto dadnimaduna ma qabto bini'aadamnimaduna ma qabto dayaacii laga cararay aayadana si toos ay u khilaafsan marka qofku hadduu arkayna ubadkii ka dayacmayaan oo ka dayacan hadduu arkayna ubadkii ka dayacan oo xaaskiisa dayacantay oo ay durxumaysantay inuu guur ku hamiyo maahe waa inuu arrinka caruurtan iyo xaaskiisa meel ku tiiriya wey markaad xaaskaaga iyo caruurtaada adigu meel ku tiiriso ee aad meel ku hubiso markaa ama gabadh kala guurso ama iska dah laakiin reerkaaga dayacan maya shareecadu ma qabto haynta aayad iska maqasho mathna wa thulatha wa rubaa adigoo tiisaba madaryeela tu kala ku darahan noqonine xaaskaaga hore horta iyo caruurtaada waxa weeyaan ka adka oo dayacaada ka ilaali dumarkana waxaynu leenahay iyagana cadaalad darrada ragana looma ogola dumarkana looma ogola in badan waxay dhageenu maqlaan nin gabadhiisa u wanaagsan oo wanaajiyay oo meel wanaagsan dhigay oo ubadkeeda u fiican oo isaga iyada u fiican ubadkeedu u fiican ninkeedu oo iyadu u fiican oo faamiligeedu u fiican oo uu ixtiraama oo uu awooda inuu gabadh labaad iyo mid saddexaad ba guursado jeebkiisuna uu awooda daaqadiisa raganimana uu awooda oo haddana dumarkii markuu guursado laga yaabo inay reerkii rogto ama gurigii baabiiso ama waxay gurigii gubto ama ay tiraay fur waxa la yaala waxaasna shariicada islaamka uu ka soo horjeeda in raggu laba guursadaan saddex guursadaan afar guursadaanna ilaahay baa u baneeyay haddii shuruudan aayadu sheegtay la helo oo laga soo baxo shuruudaasna waa cadaalad in loo sameeyo